qof kasta waqtiga uu firaaqada yahay waxa uu jecel yahay inuu shay markaasi sameeyo anigu waxaan jeclahay waqtiga aan free ahay inaan daawado filmaanta waxaan kasii jeclahay daawashada musalsalada ma jecli musalsalada hindida iyo turkida sidoo kale ma jecli musalsalada lasoo turjumo waxaan jeclahay musalsalka aan luqadiisa fahmayo inaan ku daawado originalkiisa si aan qisada dhabta ah markaasi aan u dhuuxo isla markaasina aan u fahmo waxaan halkan kula wadaagayaa musalsalada aan ugu jeclahay daawashadooda intaan kuwaas u gelin xalay waxaan aan dhamaystirtay musalsal cusub oo sanadkan 2022 ka soo baxay waxa la yiraahdaa House of Dragons seasonkiisii koowaad ayaa lasoo fasaxay 10 xilqadood ayuu ka kooban yahay 9 xilqadood oo kamid ah ayaa hadda active xilqada kalena isniinta soo socota ayaa lasoo active gareyn doonaa markaas xalay ayaa dhamaystirtay 9kii xilqadood ugu horeeyay ee seasonka koowaad waa House of Dragons ayaa la yiraahdaa qisas qurux badan oo fantasy ka sheekanaya ma qisas dhaba runtii kaalmaha ugu sareeyana ka galay musalsalada ugu fiican caalamka haddaba saddexda musalsal aan jeclaan lahayn aad daawatid isla markaasna la soo aragtid waxaa kamid ah musalsalka la yiraahdo Game of Thrones musalsalka la yiraahdo Power Ghost iyo waliba musalsalka la yiraahdo House of Cards waa saddex musalsal oo kamid ah musalsalada aan ugu jeclahay isla markaasna saddexdaba aan daawaday runtiina aad u qurux badan qofkii jecel daawashada musalsalada waqtiga firaaqada uu yahayna u fiican inuu daawado saddexdan musalsal waa saddex musalsal oo kala duwan oo saddex shay oo kala duwan ka hadlaya House of Cards waxa uu ka hadlayaa waa siyaasad nin sifir kasoo bilaabaya siyaasadda ilaa uu madaxweynaha Mareykanka ka gaaro Game of Thrones isaguna waa fantasy laakiin isaguna qiso qurux badan ayuu hogaaminayaa oo runtii musalsalada ugu fiican caalamka ayuu ku jiraa halka musalsalka kale la yiraahdo Ghostina uu yahay wiil dhalinyaro ah oo sifir nolosha kasoo bilaabaya ilaa uu taajir ku noqonayo isagoo oo wax kasta u sameynaya sharci darraba si uu heerka u sareeyo ee New York dadka ugu waaweyn ku noqon lahaa saddexda qiso iyagoo faahfaahsan waa idin wadaagi doonaa hadda jecesha commentiga ayaa soo qori doontaa adigu waqtiga aad trade tahay maxaa qabataa commentiga noogu soo qor saddexdan musalsal iyo ka ugu horeeyay aan xalay daawaday aan wali dhamaystirnin keebaa saddexda ugu jecesha mise jecesha inaan musalsalada iyo qisooyinka filmaanta halkan marba waxaan daawaday maadaama aan ugu jeclahay oo xiiseeyo daawashadooda inaan idinkana idin la soo wadaago commentiga igu soo qor haddii aad muuqaalkan ka heshayna favorite ka taabo aad maasantiin saaxiibayaal maalin wanaagsan